السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قاعد يسوق بنتنا وركاي ورحنا ديراتك عمات وحنا بينا هنا شيخ محمد عمر وكمده علماء رفق عمر دقيسي حبان gaar ahaan agagaarka gobolka maaragtay erer degmada salaxaad ka jira oo sanadkan oo dhanba dagaal uu ka jiro dagaalkaas oo dadka shacabka dhibaato badan ay ku haysato kaasaan waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo iyaga kamid ah oo dhibaatada iyo waxa keenay iyo waxa ku saabsan iyo cidda wadda inaan ka hadlo marka ugu horeysa barnaamijkanaguna waxa weeye 3 cabasho mid ilaahay aan uga cabanayno iyo mid aanu dadka Soomaaliyeed ee magaca Soomaalida aan wadaagno aan u sheegayno iyo mid aan dawladda federaalka ee Itoobiya aan iyadana u sheegayno iyo mid aan ku cadeynayno dhibaatada cidda wadda marka ugu horeysa ilaahay waxaan uga dacwoonaynaa dadka dagaalka nagu wada ilaaha khaaliqa ayaa isku meel nagu abuuray in aadamka oo dhan gaal iyo muslim cid walba meel buu ku abuuray wuxuuna ugu abuuray dadka mujtamaci inay dhulka ku noolaadaan ku dhaqmaan ku caabudaan kii kristan iyo kii muslimaba nabad ay ku wada noolaadaan sidaas daraadeed nimanka aan ka cabanayno ilaahay baa nagu dhex beeray ilaahay nagu dhex beerayo ee nagu abuurayo ee isku deegaanka naga dhigayo oo nala yiraahdo aw iyo ogaadeen ilaahu waxaan dacwad kaaga nahay adoomada kibray ee dhulkaagii aad abuuratay ee aadamigu inuu ku noolaadaan aad ugu tala gashay yiri waanu leenahay ilaahu adaan kaaga dacwoonay waxa adduunka uu ka yiri barnaamijka fircoon isagana meeshu maray waan ognahay ilaahay waxaan rabnaa inaad kuwaas naga qabato adaan ku baryaynaa adaan ku hoos joognaa adooma ku caabudaan nahay xaq daraana lagu wadaa intaas horta adigaanu dacwo kaaga nahay ilaahu nagana aqbal oo naga ajiib intay arintaas khusaysaana qof walba meesha aad joogto sida oo kale alla bariga iyo ilaahay dacwadiisa u wad inta markaan ka gudbo waxaan dacwada labaad u gudbinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogtee af Soomaaliga dadka ku hadla ee meel walba degan ee isku dhiiga iyo isku diinta iyo isku midabka ah iyo isku hadalka ah waxaan lagu hayo ee dhulkii inta oo qarni aan wada deganayn maanta la leeyahay caagaha dhulka ka qaada geeliinu ma daaqi karo arigiinu kama cabbi karo deegaankiinu ma joogi karo dacwadaas baanu idinkana idin soo gudbinaynaa oo qof walba waxa weeye dadku muslim weeyo isku jiir weeye waxaan rabnaa intii itaalkaaga uu yahay hadday awooddaadu hadal tahay hadday awooddaadu tahay kaalmo dhaqaale hadday awooddaadu tahay mid difaac qof walba oo Soomaali ah waxaan ka rabnaa heel baan ka rabnaa gardarradaana lagu hayo inay nooga heeliyaan meel kasta joogaan taasuna waa dacwadda labaad tan saddexaad dawladda federaalka ee wadankan xukunta ee dhowr iyo 40 qowmiyadood ka kooban ee qowmiyad waliba meesha ay degan tahay ay ku nooshahay xornimo iyo sharci iyo nidaam dawli ay ku joogto ayaan waxaan rabnaa waxa nalagu hayo ina ay iyada dawladahu awood laho gacan dheer inay naga qabato oo noo heeliso waxa nalagu hayaa sharci ma garatay madaniya ma aha ku islaamna ma aha waa ku awood sheegasho oo qabiil sida daraadeed iyada dawladda federaalka oo shacabkeedii nahay arinta iyadana waxaan dacwad uga nahay inay naga qabato dadkaas dulanka nagu haya taasuna waa dacwadda saddexaad waxa kale in u sheegaynaa dadka marka waxa weeye dadka dagaalka nagu wadaan sheegaynaa marka dadka dagaalka nagu wada
وقبيل محمد سبير ليراه oo dhulka markii ereyga magaca baxay la eego aan annagu aad garanayso inaan mudnaanta ka leenahay sababtoo tahay waxa la yiraahdaa aw iyo ogaadeen dhulkan yaa ku nool aw iyo ogaadeen aw waxa la yiraahdaa ugu yaraan 10 qabiil oo Soomaali ah aw qudub aw nuux abayoonis ashraaf aw xasan gaadsan iyo kuwa kale inta oo qabiil ba aw la isku yiraahdaa hadday iyagu dhulka lahaan lahaayeen oo mudnaanta leeyihiin ogaadeen iyo aw baa la dhihi lahaa halkaa waxaad ka garanaysaa inay dadka awga yihiin ama horreyn ay ka soo horreeyaan ha noqoto ama mudnaan ay ka leeyihiin oo islaamnimo oo diineed ha noqoto ama mid deegaan ha noqoto ama mid shacab ha noqotee inay mudnaanta dadka magaca awga wata eenu annagu ka mid nahay oo aw qudub aan nahay ina ay maaragtay mudnaanta ka leeyihiin dhulkii sidaa ahaa ee ilaahay u abuurtay addoommadaas inay ku noolaadaan ayuu qabiilkaasu 3 isagoo ku dagaalamaya 3 ayuu dagaal sanadahan oo dhan nagu wadaa koow wuxuu ugu dagaalamayaa qabiil laba wuxuu ugu dagaalamayaa urur oo la fleeyaa 3 wuxuu ugu dagaalamayaa ilaahay wuxuu siiyay anigu dadka kale waxay wadanka u degan yihiin ee Soomaalida garamba maaye maamulkii deegaanka Soomaalida la yiraahdo iyaga iska haysta iyagaana madaxa 3daas oo iskaashaday ayaa waxay muwaafaq ku yihiin inay dadkaas dhulka ilaahay ku abuuray ee iyaga hadaynan uga soo horeeyeen isku waqtiga uu lagu arkay inay caws iyo ceel iyo deegaan iyo ammaan intaba inay u diidaan taasuna waxa weeye taasan ka leenahayo waa dadkan ka cabanayno waxa weeye dhulka waan wada degannahay qolo walibana meesha ilaahay ku abuuray degan tahay nin kalihina ma jiro waxa weeye meesha hadda maanta la isku haysto waxa ay wadaan sharci madaniya iyo sharci islaama wuxuusan qorayn dhul intaa oo sannadood magaalo ah oo degan yahay oo canshuurtii laga qaato oo guryihii dhisan yihiin oo ceelashii dhisan yihiin ayaa ma aragtay ayaa dadkii ka guura la leeyahay waxaa loo soo adeegsanayaa 3daasoo mid walba loo soo geliyay shaatigii dawladda oo ay qabaan tuutihii dawladda iyo qorigii dawladda iyo baabuurkii dawladda ay wataan ayaa dadka lagu barakicinayaa oo lagu weerarayaa taas adduweynaha iyo hay'adaha xuquuqul insaanka iyo intii aan soo sheegay ayaan iyadana ogeysiinayaa inay yihiin dadkaas inayna dawlad kaliya nala dagaalamayn oo qabiil nala dagaalamayn oo urur nala dagaalamayn 3 isbahaystay madba shaatiga ay qabaan ina ay inta kale u galiyaan nagu weerarayaan taana waxaan u sheegaynaa dacwada afraadbo waa dadka waxan wada waxaa soo haray sheeko yar baan idiin sheegi waraabe Soomaalidu qoran waraabay tira qoran ruwa iyo ari ayaa coloobay markay coloobeen waxay dacwo ugu tageen weerku waa waraabaha mid kamid ah oo ka ugu khatarsan weerkiiba xafiiska u fadhiyay waraabuhu ariga markuu inuu laaya damco markuu weeraray ilaa tobaneeye intuu dilo ayuu isagu inta kale iska badbaadiyaa hilibkaas u cunaa weerku laakiin arigu hadduu 100 yahay 100 kaba ilaa uu dhulka dhigo kama haro labadoodii oo isdacweynaya waa xafiiskii oo weer fadhiya ayay u yimaadeen dacwaana habeenada waxaan isku haynaa weerkii maxaa daa weer ari la yiri xukun maxaa u malaynaysan wuxuu yiri sharciga aan xukumay waxa weeye inta neef ari uu hortiina ka muuqdo ama wadanka joogo inuusan maaragtay inuusan noolaanin ciddii aanu dacwadda iyo dawladnimada aan ka sugaynay in 4 bilood ka hor anigu aan waa dawlad Soomaaliyeed oo isleenahay ninkii ururka ahaa ee yacabka ahaa in maaragtay ilay
ayay kuwan uga aqoon yahanoo way ka fiicnaanayaan aan islahayn ee aniga laga helaya facebooka warkii aan ka jeediyey anoo isaga ku taageeraya ayaa xukunkii qaatay oo weerkii noqday oo ninka xukunkaa ridaya in reeraha maanta la baabiyo oo meesha laga raraa waxa weeye marka masaajid haddii laga soo ooyo xaggee kaloo la aadi baa layidhi taasna mahmaadaasaan ka leeyahay waxaa ii soo hadhay talaan jeedinayaa talada waxaan u jeedinayaa inay colaaddaas horta sidaa tahay oo aanan qadfaynin waxaa idinku caddayna oo lahayaa oo facebookyada ku jira wardheer in shir lagu qabtay reeraha in la xasuuqa lagu go'aamiyey in qabri dahare lagu qabtay in gaariso lagu qabtay in dhagax buur lagu qabtay in goday lagu qabtay in jigjiga lagu qabtay in nairobi lagu qabtay intaas oo dhan xaqiiqadeeda dadka Soomaaliyeed meelaha ay meydiyuhu yaalaan ayay ka helayaan inuu go'aan dadkaasu ay wada qaateen uu yahay oo waxaan nabayo ama aan jirin ma aha xaqiiqadeedii baad helaysaan waxaan talo